dadka Muqdisho maanta waxa uu rumowday riyo ku aadan xilliga la furayo wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho kaas oo sabab amni loo xiray si looga hortago qataraha ay cadawgu ku dhibaateynayaan shacabka. Hoggaanka ugu sarreeya ee dalka, taliska booliiska iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa in muddo ah ku howlanaa in la furo wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ee dhagaxyada lagu xiray. Munaasabad lagu shaacinayay in dhammaan wadooyinkii xirnaa la furay oo ay ka soo qaybgaleen ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, taliyaha booliiska iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa maanta ka dhacday magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa marka hore sheegay in tallaabo wanaagsan oo la qaaday ay tahay in jidadka la furo. maantay waa maalin aad iyo aad shacabka Soomaaliyeed iyo madaxda Soomaaliyeedba u weyn gaar ahaan kuwa ku nool magaalada caasimadda ah. waa maalin aan hubo in badan oo bulshada ka mid ah inay sugayeen dhagxihii magaalada yaalay waa laga qaaday. waxaan hubaa madaxda Soomaaliyeed, madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta kale ee dawladdu inayan habeen ka seexan suuragelinta arrintan. maalintii la magacaabay aniga oo ah gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha booliiska Soomaaliyeed oo gadaashayda taagan ilaa maantadan la joogo waxaa laga joogaa muddo sanad iyo bil ah. waxaan u taagnayn oo xilliyo aan tiro lahayn aan isugu nimid sidii lagu suuragelin lahaa in dhagxaha magaalada yaalla oo aad og tihiin sababaha loo dhigay inay yihiin sababo amni in meesha laga saaro. runtii xaaladaha amniga ee markaas jira ayaa mar walbana siinayay rabitaanka iyo soo jeedinta annaga aan soo jeedinayno jawaab ka duwan. arrintaas sidii lagu xaqiijin lahaa marna kama seexan madaxweynaha iyo madaxda kale oo hawsha u magacaabay. waa ilaahay mahadiis marka ayadoo ra'iisul wasaare cusub Maxamed Xuseen Roble uu joogo inay suuro gasho riyadii shacabka Soomaaliyeed ee Banaadir ku nool iyo madaxda qarankuba ay ku riyoonayeen oo ah in dadka iyo madaxduba ay arkaan magaaladan oo nafis heshay oo dhagxaantii laga qaaday. waxaan la soconnaa caqabadihii amni ee markaas jiray oo dartood loo dhigay dhagxaha magaalada inaan weli khalid laga noqon oo weli ayan dhammaystirmin, balse haddana ayadoo la fiirinayo laga jawaabayo baahida bulshada ayaa la yidhi intii karaanka ah ee amnigu saamixi karo hala qaado. Taliyaha booliiska Soomaaliya oo munaasabadda goobjoog ka ahaa ayaa tilmaamay in booliiska ay har iyo habeen ay ka shaqayn doonaan sugidda amniga iyo baacsiga nabadiidka oo shacabka dhib ku haya. loo soo celiyaa waxay ku xiran tahay sida ciidamada aan ula shaqayno oo aan u wada shaqayno. qof kasta, aabba kasta, hooyo kasta, gabar kasta, wiil kasta, sheekh kasta inaannu dadkeennu isku duubnaanno oo aannu ilaashinno nabadgelyadeenna. nabadgelyadeenna waxaa ku jirta nolosheenna, waxaa ku jirta waxbarashadii. sidaa awgeed maadaama aannu go'aansannay haddaannu nahay ciidamada amniga waxaannu go'aansannay inaannu waddooyinka waaweyn u khafiifinno in aad la shaqaysaan ciidamada amniga ee idinla jooga ee waaxyaha iyo degmooyinka ee magaalada ka kooban tahay aan ka wada shaqayno oo ay noqoto magaalo aan wada leenahay, nolosheediina aanu ilaashanno barwaaqadeeda iyo nabadgelyadeeda. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Xuseen Roble waxa uu ballan qaaday in xukuumaddiisa ay ahmiyadda koowaad ay siin doonto amniga iyo inuu ka dhabeeyo ballanqaadkii uu horay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka dhex ballan qaaday. waxaan u mahadin celinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo fursad ii siiyey imaanshahaygii inaan kaga faa'iidaysto furidda wadooyinka xiran ee magaalada Muqdisho
waxaan halkan weynid in aan indhahayga ku soo arko xaaladda shacabka iyo sida loo fuliyey ballanqaadkii ahaa in aan jidadku u furayno shacabka Soomaaliyeed aniga markaan shakhsi ahaan lafsadeyda ka soo qaado bil ka hor waxaan ka mid ahaa shacabka magaalada Muqdisho ee ku dhibaataysnaa xirnaanshaha wadooyinkan runtii waan garan karaa dhibka iyo xanuunka ay leedahay xirnaanshaha wadooyinka magaalada Muqdisho shacabka ku noolna ma istaahilaan mana qaadan karaan culayskii ay soo mareen muddooyinkii faraha badnaa ee wadooyinka magaalada ay xirnaayeen walaalayaal ilaalinta amniga waa mas'uuliyad dhammaanteen wada saaran fariin waxaan rabaa inaan u diro shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada Muqdisho degan runtii waad xanuunsateen waad dhibaatooteen carruurtiinii iskool way aadi waayeen qofkiinii xanuunsanaa qofkiinii ku geeriyooday xaafadaha magaalada Muqdisho dhammaan fursad way u heli waayeen ama dhib ayay u maraan siday meel intay uga tagaan meesha kale ay ku gaaraan saa darteed waxaa loo baahan yahay idinkoo og xanuunkaas aniga iyo madaxda iga sarreyso madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ugu horeeyo oo ka dhaqanayna arrintaas inaad nala qaadaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabka Muqdisho haddaad tihiin mas'uuliyadda amniga idinkoo la kaashanayo ciidamada amniga ee qaranka Ibrahim Xaaji Yuusuf warbaahinta gobolka Banaadir Muqdisho